nabadi ma ka hirgeli kartaa magaalada Ceergaabo sida ay sheegeen nimankii garaadada ahaa ee nimankii huwantaa waxa shalayto hadlay hadalkoogii maxaa kaaga baxay barnaamijkaasaan doonaya hadaba inaan ku fahansiiyo si waxay madmadowga halka ku jira iyo in aanay nimankaasi wax nabada rabin shuruudaha ay soo wataan ee ugu horeeya ee wada hadalkana ay ku soo darayaan shuruudo la isugu dhaco oo si fudud dagaal uga dhaco iyo barnaamijka ay soo qoondeeyeen ee madax jabinta sidii laascaanood inta lagu bilaabo reeraha warsangelida ay reeraha degan ee daarooda halkaasi in maalin walba hal doorkooda mid la dilo si loogu eedeeyo dawladda Soomaaliland oo loo kayo barnaamijkaasna daba rabaa in aan fahansiiyo ee barnaamijka share kare adna ila fahan okay waxaad ogeydeen hadaladii nimankii garaadada ahaa ee shalay tolo hadlay nimankaasi waxay sheegeen arrimo sida iskaga hor iyo dabayman waxay qaateen barnaamij wax la yiraahdo daarood ay afkooda ku hadlayeen iyagoo harti daarood baan ka wakiilnahay reeraha daarood ee halka dega magaca qaadanay reer Sheekh Saxaaq iyo Soomaaliland bay ka tageen reer Sheekh Saxaaq bay ka tageen Karxajis bay ka sii degeen Habar Yoonis bay ka sii degeen waxay afka ku dhufteen inay xirsi Cismaaniyo suldaankii halka hadlay iyo reer Suuliya reer Caynasha ay hoos ula hadlaan oo gaashaamay iyo eedeeyaan muhallin okay waxay ku jirta hadaladoodii hanjabaad ayaan hadda saalayeen sida okay hadda waa maxay nabadda laga rabay iyagu waa maxay yaa dhibana yaa nabadda looga baahnaa waxa weeyaan iyagu waxay eedeeyeen Musabbixi oo ka dhigeen ninka dambiiraha ee falkanba ka dambeeyay waxay ka dhigeen inay kala saaraan reer Sheekh Saxaaq oo qaybna yiraahdaan yani waa la idinku gafo dulmantiin qaybna ay yiraahdaan dagaalkii ku jiraan hawsha wadaan tusaalan ku siinaya Musabbixi goorma ay campaign buu waday sidii uu Caynaba iyo Oog iyo Burco iyo Berbero soo maro Ceergaabo tagay waana meel calankiisu ka jiray nidaamkiisu ka jiray dawladdiisu ka jirto waa la soo dhaweeyay waanu iska laabtay wax dhibaato halkaasina kamaysan dhicin intuu Musabbixi joogay way yaa hadaba wax sameeyay Sheekh Salmaan ninkay ugu yeedhaan hubka soo galiyay booliska iska hor yimaadeen horta iyaga dambiga abuur wada baahtaa wax niman ma ahayn Musabbixi ninka marka taasani nimanka intay halka ka kaceen xabada qaatay geela dhacay de Musabbixi ma ahayn Musabbixi geel mu qaadan mar labaad Musabbixi nimankii meydka soo qaaday intuu glaayay probogoskoogii ay wateen mu qaadan in nimanka dambiga galay waa nimanka dhul bahantay lagamana hayo dambiga waanu qilnay waanu qaldanahay midna may oranin iyaga afkana marna kumay dhufan inay hal dambi leeyihiin hadaba maxay yiraahdeen daarood bay qaateen waxayna la hadlayaan Habar Yoonis halka ugu hooseysa isaaqi kalena way fogeynayaan kuwana xayleey waxba naga dhaxeeya hadaba dibankaasi hadalkooga waxa ku jira hadalkooga suldaan hadlay wuxuu yiri yani in 3 sano calan meel saarnaado dadkii kalena ay raaciyad ku ahaadaan isagoo uga jeeda yani hadalkii garaad jaamac ee ahaa shalay tolo garaad jaamaci wuxuu yiri ina garaad lawar wuxuu yiri de waxaan nabadan ku baaqay ayaan ku raacsanahay buu nabadda uu ku raacay hadaba aan idin fahansiiyay si aad u fahantaan nabadda lagu raacay wax weey inuu kolka hore la yiraahdo Ceergaabo dhibaato kama jirto aynu wada hadalno laakiin hal sharti baa ku xiran in Ceergaabo si nabad loo wada deganaado qof walba calankiisa ha loo daayo tusaalahaan inay warsangelidu saartaan calanka maakhir dhankooda inay dhulbahantoona sakadooda yar saartaan calanka khaatimo nimanka reer Sheekh Saxaaqna ee bartaa degan Habar Jecliya Habar Yoonisna ay Suudaan calanka Soomaaliland Ceergaabo nabadooda shuruuda ay wadaan ee ka wada hadalada wata maanta guddigii Karxajis waxay tageen ilaa iyo Ceergaabo wada hadalada halka ka furmaya barnaamijka la isla eegaya wada hadaladaasi waxa dhexdhexaadin ka oo labada dhinacba qolooyinba qabtay warsangeliyadu waxay yiraahdeen anagu nimanka iyaga dhul bahantay ayaanu qabanaa wakiilka nahay nimankii Habar Jeclana ee Muuse Abukar bartaa deganana waxay leeyihiin waxaan wakiilka nahay nimanka reer Sheekh Saxaaq ee Habar Yoonis ama Muuse Ismaaciil ay dhibaatadu gaadho labada arrimood markii la soo horfariisiyo qolo waliba shuruud bay rabtaan Muuse Ismaaciil waxay leeyihiin waa nimanka dawlad bay dagaalamayeen
nidaam baa dhacay sababta ay inta halka kaceen ragaygi ku laayeen waa maxay rag waa istila waana la istila hal doorkii intii geel dhaceen oo rag laayeen oo waxa soo dhan sameeyeen ayaana haddana garawshiyo laga sameeyay shuruuda meesha taala waxa weeye idinka ayaa dilay inankayagiyo waanu uga aaran wuxuu ahaa xaq in inta la soo qaado ragaasi la yiraahdo war nabad waanu ogol lahe nimankii wax dilay waa kuwa geelina waa kuwa baabuurtii propaganda waa kuwa intaasina wakaasi ama nimanka disha ama maqaata wixii la kala yeeli jiray yeela waa arinta beelaha laakiin waa kibriyo qori baan haystaa ayaa wax ka qaaday marka aan leeyahay cid wax ka qaadi karta ma jirto yaan qori buu haystaa ninkan oo awood buu leeyahay haddaba inta markaynu ka nimaadnay ilmaadeer shuruuda kale ay wataa waxa weeye ilmaadeer ma diidanine anagu xukun isaaq dooni mayne calankiina daantiina ka taagta annagana kaayiga daanteedaan ka taaganana ina kala kaxeeya arinta marka waa la iskaga hor imanay waxa leeyahay ceeri gaaban nabadeedu waxay ku dhisan tahay tii 19 ee 93 Somaliland nan nidaamkeegu ka shaqeeyo ama warsageli ahaw ama gaxayla ahaw ama dhulbahanta ahaw ama habaryonis ahaw ama habar jecla ahaw ama cid kale joogta ahaw ama magaalada ahaw ama magaalada degano ama guri ku lahaw nidaamka Somaliland ay ka shaqeeyo nidaamka Somaliland ma ogola nimankani waxay leeyihiin aday ku taala Kanada loo haysta waa halka horta la isaga hor imanaya qodobka kalena waxa weeye nimankii way tashteen waxay la warsangeli nagu adkay kicina waa maxaa xal ah waxa xalaba la yiri hal shay in sidii laascaanood ka dhacday warsangeli iyo la isnacsiyo maamulka halka ka tiga ee Soomaaliland si la isku nacsiinaya haday ganacsato tahay haday siyaasi tahay haday hal door tahay haday mid Puntland taageersan tahay waxaba waxaanu qaadanaa in rasaas la dhaco sidii caadada ahayd taana waxay keentay in hub fara badan ay magaaladii soo gashtaan oo guryihii keenaan waxa la sameeyay lacag malaayiin dollar la soo dhaxgelinayaa magaaladiina waxa la sameeynayaa in la laayo dadka حتى dhulbahantaha barta jooga haday noqonayso in la dilo kadib sidii la ascaanood baa waxad maqlaysaa nin baa la dilay ganacsada nin kale la dilay dabeedna ilaa la yiraahdo maamulkan hanaga baxo dagaalku markaa halkaas uu soconaya waliba maadaama oo imka hubkii iyo balaayadii iyo wixii gacanta lagu hayo way ka fududaanaysaati oo tii la ascaanood muddo dheer ma noqonayso way hub fara badan bay soo gashadeen nimankani nidaam fara badan iyo hawlo ka la yaala magaalooyinkii dul joogan waxa soo dhanbay wadaan hadaba waxa la rabaa marka ay warsangelina la kiciyo reerahana la isku dhufto tabti gaalka ayana maalinna habar jeclan in laga soo dilo maalinna la yiraahdo warsangeli baa dilay maalinna daanta Muuse Ismaaciil kan in lagu soo dilo la yiraahdo dhulbahanta dilay markii doorashadu soo dhawaatana dagaal la qarxiyo ceer gaaba lagu kala kaco barta u dagaalka qarxo si markaasi dadkii isaaq ahaana ay u kala shakiyaan oo la yiraahdo nidaamkan dawladda wada loogu eedeeyo oo xisbiga wadan iyo taageerayaashii hawlahaasina la yiraahdo dawladdu maxay soo qabanaysaa kan maxaa loo yeeli waayay kan kale dabeedna nidaam noocaas la sameeynaya aniga iga qora xogtaasan ogahay kala shaki baa jira hawshaas la wadaa ilmaadeerayaalow marka wax nabad la yiraahdo ceer gaaba jooga dadka reer ceer gaaba anigu nabad iyo barwaaqo iyo reerayn ayaan rajaynayaa sidii awal baahayeen oo iskuuladooda dhigtaan barashadooda dhigtaan jaamacadooda dhigtaan ganacsigooda wataan nidaamkooda wataan sidii kale uu adduunkii u khalkhasan hadaba ilmaadeerayaalow nimankaasi barnaamijkaasi soo dageena ama reer ceer gaabo qaabkii aad ugu hortagi lahaydeen keena ama haydin ku dhacday iska suga barnaamijka iga gaarsiiya reer ceer gaabo meel kasta ka tuura dawlad iyo nin kasto rajo ka qaba arintaasi gaarsiiya aad iyo aad baan ku